بسم الله الرحمن الرحيم وصبح نمتل هذا طبنك بشا فبراير سنة كاللبكن لباتن يلح أو كوباغن لبيا لباتنك بشا شعبان سنة كن أفر بقول فرتن يتضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي حولشدا ورركا qodobada saakay barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamida ku dhawaad 250 qof oo dhimasho dhaawac uu ka soo gaaray duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday gobolada Kordofan ee dalka Suudaan qaramada midoobay ayaa war ka soo saartay amuurtan ciidamo ilaa iyo 20,000 ah oo ka socda dal muslim ah oo ku sii jeeda Gaza haddaba maxay tahay ujeedada halkaasi ay u tagayaan waxaan idin haynaa xog faahfaahsan oo amuurtan la xiriirta Iiraan oo soo bandhigtay shuruudo adag oo la xiriira sida kaliya ee ay hoos ugu dhigi karto uraniumka ay naaxiso Netanyahu oo maanta u sodcaalaya Mareykanka safar lagu macneeyay in uu go'aamin doono colaadda Iiraan lagu qaadayo iyadoo ay soo baxayaan xog cusub oo la xiriirta dukumiintiyo iyo cadeymo uu doonayo in ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu la wadaago Donald Trump صحفي إسرائيلي أو لو حري تهن لحريرة حرير ولا سميي إيران حيث تهي سببته شيك الله ياب لها يعني نكاهينا أمورتن لما نقض بدن يوري بكوكله أو فافاسن يوحي ورا سوكرنا أنت ينهوذا كوجرنه أيان إني كوسو قدبنينا برنامج كحول شدا وررك مركل دعوة ضيا سياد ولا سعته أنا هالشورركن برنامج ده يمعلومات كاينو هل كن كسو قدبنينا haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa colaadda waddanka Suudaan dagaalka Suudaan oo bilowday bishii Abriil 2023 ayaa sanadkii afraad ku sii siqaya waxaana lagu soo waramayaa dagaallo culus in ay socdaan iyadoo dagaaladii ugu dambeeyayna ciidamada RSF lagu buurtay laakiin warbixin culus ayaa soo baxday qaramada midoobay ayaa sheegtay in xaaladda bini'aadantinimo ee gobolada Kordofan ee dalka Suudaan ay si weyn u sii xumaanayso iyadoo duqeymaha dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ay dileen ku dhawaad 100 qof 2 toddobaad gudahood wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha Volker Turk ayaa u sheegay golaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay in xafiiskiisa uu diiwaan geliyay qiyaastii 90 qof oo la dilay halka 142 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ka dhacay gobolada Kordofan muddo 2 toddobaad ah oo ku eg ilaa iyo 6 February Turk ayaa sheegay in duqeymahaasi ay beegsadeen kolonyo gargaar ah oo ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP suuqyo xarumo caafimaad iyo xaafado ay dad rayida ku nool yihiin oo ku yaala koonfurta iyo waqooyiga Kordofan dhinaca kale isuduwaha gargaarka bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee dalka Suudaan Denise Brown ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in kolonyo gargaar sida si isdaba joog ah loo beegsanayo iyadoo xustay inay aragtay xadgudubyo ay geysteen ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaan RSF barnaamijka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa axadii sheegay in 3 xarumood oo caafimaad lagu weeraray koonfurta Kordofan toddobaadkii la soo dhaafay taasi oo keentay dhimashada in ka badan 30 qof qaramada midoobay ayaa horay uga digtay in macaluul ay ku sii fidayso gobolka Darfur halka rabshadaha ka socda Kordofan ay sii kordhayaan in ka badan 22 milyan oo qof oo reer Suudaan ah ayaa wajahaya cunto yari baan iyadoo dagaalku uu galay sanadkiisii afraad waxaana la sheegayaa in ka badan 12 milyan oo qof ay ku barakaceen dagaalka وهجاك بالحق إسرائيل أين أجنو لانتا سيردونك جودها إسرائيل شين بيت أيها حبسي قد نكتي صحفي إسرائيلية أو لغته سيء هي إنه الحريري لنا عي إيرانيين سيد أي شيء سو وربهنتا إسرائيل ورجيسكا يدعو تحرنو ده كصباح إسرائيل أيها شيء إن صحفي مدح بنان لقبتي هرانتي تضبعت كي هوري
kadib howlgal ay wada jir u fuliyeen sheembeet iyo booliiska magaalada qudus ee la haysto saxafiga oo magaciisa aan la carabaabin ayaa lagu tuhunsan yahay in uu xiriir la sameeyey dad lala xiriirinayo Iiraan telefishinka Kanal 12 ayaa sheegay in dad aan la aqoonsan saxafiga ay kula soo xiriireen baraha bulshada iyagoo ka dalbaday in uu u duubo banaanbaxyo ay sameynayeen yuhuudda mayalka adag iyo muuqaalo ka mid ah wadooyinka bartamaha Qudusa qareenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Nati Ram ayaa sheegtay in macmiilkeeda isaga uu la xiriiray booliiska kadib markii uu ka shakiyay xiriirkaas isla markaasna uu ka fogaaday wax wada shaqeyna tan iyo bilowgii dagaalka Gaza bishii Oktoobar 2023 Israa'iil ayaa sheegaysay in ay xirtay tobanana muwaadiniin oo lagu eedeeyay basaasinimo ay fuliyeen Iiraan ay la shaqeynayeen geesta kale maxkamad ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa xukuntay in xabsiga lagu sii hayo 2 qof oo lagu eedeeyay in ay u shaqeynayeen sirdoonka Israa'iil ee Mossad labada eedeysana oo loo kala magacaabo Mahmoud Badoq Daria iyo Wasil Karim Oglo ayaa lagu eedeeyay inay xiriir la sameynayeen sirdoonka Iiraan hagaag bal xaggan iyo wararka qasaha tan hadii aynu eegno waxa lagu yeero golaha nabadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhisay ayaa la filayaa 19 bishan in kulankoodii ugu horeeyay ay yeeshaan laakiin waxaa la sheegayaa ciidankii ugu horeeyay ee lagu tilmaamay ciidamada xasilinta in Mareykanka Gaza la geyn doono toddobaadii gudahood aynu eegno war amuurtan la xiriira kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada waddankaasi Indonesia ayaa la filayaa toddobaadyada foodo inagu soo haya in la geeyo Mareykanka Gaza sida uu sheegay telefishinka Kan ee Israa'iil laga leeyahay warbixintu waxay sheegtay in askarta Indonesia ay noqon doonaan kuwii ugu horeeyay ee ka tirsan ciidanka caalamiga ee xasilinta ee gaaraha Gaza inkastoo wali aan la shaacin taariikh cayiman oo ay imaanayaan ciidanka ayaa la filayaa in la dejiyo koonfurta bari ee magaalada Rafah halkaasi oo la qorsheynayo in toddobaadyada soo socda laga dhiso xafiisyo iyo goobo ay degaan ciidankaasi bishii November wasiirka gaashaandhigga Indonesia ayaa ku nuuxnuuxsaday in dalkiisa uu tababaray ilaa iyo 20,000 oo askari si ay u qabtaan hawlo caafimaad iyo kuwa la xiriira dibudhiska sarkaal Indonesiana ayaa isna wuxuu u sheegay warbaahinta in madaxweynaha Indonesia Prabowo Subianto lagu casuumay in uu ka qayb galo shirka waxa loogu yeero golaha nabadda oo 19 bishan ka dhici doona magaalada Washington DC balse wali go'aan kama aanu gaarin safarkaasi inuu halkaasi ku tagi doono iyo in kale waxa qodobadaas halkaas aynu kaga gudubna waxaan u gudbaynaa gordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan gaar ahaan Iiraan shuruudaha ay soo bandhigtay ee ay hoos ugu dhigi karto uraniumka ay bacrimiso iyo Netanyahu oo maanta u socdaalaya Washington safar lagu macneeyay inuu go'aamin doono dagaal lagu qaado Iiraan iyo waliba wixii arrimahaasi la xiriira intaan u gudbin wararkaas aynu ku hakanno qadar xayeysiina waada marka la daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan talaadada toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag bal markan waxaynu eegaynaa wararka la xiriira xiisadda Iiraan iyo Mareykanka iyo Israa'iil oo Mareykanka ku daaban Israa'iil ayaa waxa la sheegayaa in ay u aragto kulanka la qorsheeyay in uu dhex maro maalinimada bari Arbacada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mid leh natiijooyin masiiriya iyadoo ay sii kordhayaan horumarada la xiriira arrinta Iiraan sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil telefishinka Kanal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu sheegayaa in Netanyahu maanta uu ka duuli doono magaalada Tel Aviv waxaanu ku wajahan yahay Washington si ula kulmo Trump Arbacada
warbaahintu waxay xustay in Israa'iil kulankan ay u aragto mid leh saameyn go'aan gaar ah oo ku saabsan mustaqbalka xiisadda Iiraan. Ila ku dhow Netanyahu ayaa waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah sababaha uu u tegayo Washington uuna u soo hormariyey taariikhda kulankii uu la ballansanaa Trump ay tahay in uu siiyo madaxweynaha Mareykanka xog sirdoon oo cusub oo Israa'iil ay ka heshay Iiraan. xogtan ayaa la filayaa inay ka hadasho barnaamijka nuclearka Iiraan, gantaalada balastig ah, taageerada ay siiso kooxaha hubaysan iyo sida hadalka loo yiri caburinta mudaharaadyada gudaha. warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in dhaqdhaqaaqyada military ee Mareykanka bariga dhexe ay gaareen marxalad kama dambays ah oo lagu xoojinayo awoodda military iyadoo loo diyaar garoobayo weerar suurtagal ah oo ka dhan ah Iiraan haddii loo baahdo. waxaa la sheegay in 6 dayuuradood oo dagaalka ah gaar ahaan nooca F-35 iyo 3 diyaaradaha booyadaha ah ee shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka ay ku sii jeedaan gobolka bariga dhexe iyadoo nidaamyada difaaca hawada gaar ahaan THAAD iyo Patriot la dhigay saldhigyada Mareykanka. dhanka Iiraan aynu eegno madaxa hay-adda tamarta nuclearka Iiraan Maxamed Islaami ayaa sheegay in suurtagalnimada hoos u dhigista heerka kobcinta uraniumka ilaa 60% ee wadahadalada Mareykanka ay ku xiran tahay in dhammaan cunaqabataynta laga qaado Iiraan. waa haddii laga hoos marinayo 60%. Islaami oo la hadlayay warbaahinta intii lagu guda jiray furitaanka shaybaarka qaranka ee badbaadada shucaaca iyo korontada ayaa waxa uu farti ku fiiqay in xiriirka Iiraan iyo hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada magaceeda loo soo gaabiyo IAEA uu weli jiro, balse wuxuu ku eedeeyey hay-adda inay ka gaabisay waajibaadkeeda la xiriira weerar military oo lagu qaaday xarumo ay kormeeraysay. wuxuu carabka ku adkeeyey in IAEA aysan ka leexan karin arrintan isla markaasna aysan ka aamusi karin wixii dhacay maadaama xarumahaasi ay hoos yimaadaan kormeerkeeda. wuxuu sidoo kale farta ku fiiqay in kormeerayaasha IAEA ay booqdeen xarumo aan la weerarin iyadoo kormeero kalena la filayay maalmaha soo socda. Islaami ayaa sidoo kale waxa uu carabaabay in xuquuqda shacabka Iiraan ee nuclear nabadeed ay tahay in la ixtiraamo, isagoo xusay in IAEA ay waajib ku tahay inay dhiirigeliso horumarinta tiknoolajiyadda nuclearka nabadeed. isagoo ka hadlayay wararka sheegaya in uraniumka laga saari karo Iiraan, Islaami wuxuu sheegay in arrintaasi aysan ku jirin ajendaha wadahadalka, kuna tilmaamay mala awaal ay faafinayaan dhinacyo cadaadis wada. arrintu marka waxay maraysaa kulanka Netanyahu uu la yeelanayo Donald Trump waxaa la sheegayaa inuu yahay kulanka lagu go'aamin doono dagaal. ma dhici doontaa Netanyahu inuu ka raarido madaxweynaha Mareykanka dagaal lagu qaado Iiraan, mise Trump wuxuu isticmaali doonaa maskax oo xaaladdan ku deji doonaa? waxaa leeyahay dagaalkan haddii uu qarxo ma aha dagaal ku dhammaanaya maalmo, bilooyin, toddobaadyo ma ahan, dagaal daba dheeraadoo noqon karaa baa la leeyahay. xogta maxaa ku jirtay? Netanyahu wuxuu la degdegayaa xog buu hayaa, macluumaad sirdoona. Trump marka fayl buu hordhigi doonaa, wuxuu leeyahay xogtaan baan haynaa, laakiin xogta masaxanta ayaa la isweydiinaya. yaa isweydiinaya? khubarada Amerikaanka iyo xitaa khubarada Israa'iiliyiinta. shaki weyn baa laga qabaa la leeyahay xogtaas jiritaankeeda. waayo Netanyahu ilaa iyo 1995 ayuu wuxuu lahaa Iiraan toddobaadii ay u jirtaa barnaamijka nuclearka. taariikhda markii dib loo raaco 1982 buu soo bilaabay arrintan. Iiraan toddobaadyo ma aha bilooyin, ma aha sanooyin, toddobaadyo ayay u jirtaa buu dhihi jiray nuclear. laakiin ilaa hadda Iiraan kuma aysan dhawaaqin nuclear inay haysato. sababta maxay tahay? hogaamiyaha sare fadwadiisa ayaa la sheegayaa. weli waxaa jira kooxaha muxaafidiinta ee mayalka adag waxay leeyihiin waa in lagu dhawaaqa arrintaasi, hogaamiyaha sare oo ka laabtaa fadwada. maxaa yeelay waxay leeyihiin haddii nuclear lagu dhawaaqo in la sameeyey, sheekadu isku dhamaata. Kim Jong-un kale weeyaa markaa yaa wax ka qaadi kara marba haddaa nuclear samaysato.
dagaalka marka waxa weeye cabsidiisa waxay tahay Mareykanka iyo Israa'iil inay jibin waayaan Iiraan oo markaasina Mareykanku u isticmaalo nuclear laakiin way ka duwan tahay xaaladii Japan meel jasiirada weeyaan laakiin Iiraan waxay u dhaxaysaa intaasoo wadan Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan dhankan xeebaha waxay ka saaran tahay Imaaraadkii, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait iyo Iraq oo ay la leedahay xuduud dhulka ah Turkiga laftigiisa gobolka marka waxa leeyahay halistiisa ayuu leeyahay inuu gubto laakiin arintaasi ma noqon doontaa arin timaada wada arkaysan qariirada bariga dhexe gobolka marka waxa halis ah inuu soo ololo waxa yaray saliida ka soo baxda Iraq iyo Kuwait iyo Bahrain iyo Qatar iyo Sacuudiga badankiisa xageey martaa gacanka Bershiya Hormuz gacanka Carabta kadibna halkaas ay ka gashaa Yurub iyo Asia shidaalka marka ma laga maarmaa weeyaan Qatar waxay dhoofisaa gaaska dabiiciga waa gaaska loo baahan yahay Sacuudiga shidaal badan buu dhoofinaya dagaalku marka hadii uu qarxo badan cas laftigeeda waa la isku qabsanaya Iiraan waxay taagan tahay ilaa iyo badda Mediterranean-ka waa Khubrasiya ilaa iyo Turkiga ilaa iyo Greek ilaa Talyaaniga wax naga badbaadaya ma jiraan bay leeyihiin gantaalka Hormashaaq liirada waa 2,000 oo kiiloomitir Israa'iil waa 1,200 laakiin farsamadaas miyay la soo bixi doonaan Mareykanka iyo Israa'iil oo ah in hal mar Iiraan awooddeeda la tirtiro ma dhici karta khubaradu waxay leeyihiin wax macquul ah waayo waxa la soo qaadanayaa dagaalkii dhacay bishii June oo waxa la leeyahay dagaalkaas 48 saac bay ku soo kabatay Iiraan khubarada arrimaha militariga waxay leeyihiin taariikhda ma dhicin ciidan intaasoo sarkaal inta laga dilay taliyaasha ciidamada generaaladii ugu muhiimsanaa xarumihii ugu muhiimsanaa la duqeeyay soo kabtay 48 saac gudahood dagaalkii labaad adduunka dagaalkii koowaad adduunka wax ala wixii dagaal adduunka ka dhacay lama arkin taariikhda ma soo marin dagaal caynkaasi oo kala Iiraan waxay ku soo kabatay 48 saac kadib dagaalka oo socda 12 maalmood kadib Israa'iil ayaa dalbatay xabad joojinta HBN ma aha cid siyaasada madaxweynaha Mareykanka ayaa afkiisa wuxuu ka yiri xigasho Iiraan weerarkii ay ku qaaday Israa'iil waa la xanuujiyay eragaas uu isticmaalay wuxuu kula isticmaalay xigasho anaa badbaadiyay buu yiri madaxweynaha Mareykanka wadan marka sidaas waxa la yiri loo galay ciidankiisii oo taliyihii ciidamada la dilay oo taliyihii ciidamada IRGC la dilay oo saraakiishii muhiimka ahayd la laayay dhowriyaal waxa laga hadlayaa ku dhawaad 20 generaal baa laga hadlayaa soo kabtay waliba aan diyaar ahayn laakiin 6 bilood gudahood diyaar garoobay maxaa imaan kara way marka su'aasha la isweydiinay taas weeye natiijaha marka Trump ku qancin doonaa in la weeraro Mareykanka oo weeraro Iiraan mise wuxuu ujeedadiisa noqon doontaa inuu ka hortago heshiis la mid heshiiskii Xuutiga Trump intuu heshiis qaato inuu yiraahdo Iiraan oo la heshiinaynaaba nuclear-ka Georgia bacrimintiisa gantaaladiina wixiina iska haysta laakiin aan heshiin nuclear lama maqli karno anaga inuu yiraahdo waa suurtagal laakiin Trump laftigiisa gudaha Mareykanka maxaa kaga furmi kara ayaa la isweydiinaya waa calaamad su'aal weyn Yurub maxay sameyn doontaa warbixin waxaa jirta in soo gudbin doono wargeyska la yiraahdo Foreign Policy wuxuu qorayaa wadamada Yurub in laga yaabo inay isku dhiibaan Putin oo shaka cajiib midowga Yurub heshiis buu la galay difaac Hindiya ra'iisul Britain inkastoo hadda culays u saaran yahay Shiinaha buu tagay ra'iisul Canada Shiinuhu tagay heshiisya la galay meesha marka wax weey cid walba danteeda qabsanaysa weey cid u dareynaysa ma jirto maamulka madaxweyne Trump waa kala qaybsan yihiin saraakiishiisa qaar waxay leeyihiin Israa'iil waa inaan difaacnaa wax ay rabtaan aan sameeynaa qaarkood waxay leeyihiin maxaan ugu dhimanaynaa Israa'iil maxay taa danta ku jirtaa aan ka fakarna Mareykanka doodaas baa ka socota marka aqalka cad waynu arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahaasi
inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo